gesiga dhulkiisa usha u horseeda geerida dishaay geedka habo ugabraaradada umaysigu kudhunta dalabsada xumaanta geedkooda bo anoti ma dadano sidal sayno guurina balan meedan lahayn wadalka wala difaacaya arrimaha la saarad ka socdana waad ka waraysaan oo inii sheegin waa difaacayna gudaha la suugalaya barnaamijka iyo gudaha wala suugalaya intaas aan inii sheegnaa wax dhaafsiisan oo arrin ciidan wixii arrin ciidan ka hadlimay gudaha la suugalaya barnaamijka la iskeelaya waa dhaqaaqayna dal warku wuxuu ku dhan yahay inta taliyuhu sheegay marxaladda jirta ama maanta waxa socda cid ka adkaysan doonta iyo cid u dulqaadan doonta oo dambe ma jirto sida taliyuhu sheegay la saacad wala isla dhaafaya insha Allah taala dadkaas in badan baa la dulqaatay dulqaad waa dhamaaday ummadda Soomaaliyeed beesha caalamka way aragtay waxa la saacad ka socda xasuuqaan cidna loo abayeelaynin cid dambe oo loo dulqaadanayo ehelnimo dambe iyo darisnimo dambe waa dhamaatay la saacad ma ahan meeshii walba wala isla geliyaa intaas ma raba inaan sheego badin maayo hadalka marka labaad waxaan ka tacsadeynayaa dadkii ku dhintay shahiidiinta ahaa ee ku dhintay gobolka Sool degmada Laascaanood wax badan ka hadlimayna caawa diyaar garow baan nahay waxaan diyaar u nahay dalka inaan difaacno waxa weeye noqon mayso Laascaanood meel dadka lagu qasho annaguna de aanu maxaan ku raahdaa farxad iyo nolol ku noolaano dadka iyagaan la dareenahay waa dagaalamanaa Laascaanoodna noqon maayo dagaalka kuliya meel badan baa la isla galaya waxaan kaloo rabaa inaan ka hadlo oo ummadda reer Puntland iyo ummadda Soomaaliyeed ba aan u sheego waxaanu rabnaa in loo hiiliyo waxaanu rabnaa in la garab istaago dagaal baanu diyaar u nahay maanta waa iswada qisaasanaa waana dagaalamanaa marka xiga waxaan u tacsiyeynayaa dadkii shahiidiinta ahaa gardarrada lagu laayay magaalada Laascaanood waa u tacsiyeynayaa ilaahay waxaan leeyahay xaq darra lagu laayay jannatu firdawsaha ka waraabi waxaan kale oo ilaahay u baryayaa inuu caafimaad siiyo dadka dhaawaca ilaahay u boogadhayo nabar xaq darra inuu ilaahay uga dhigo sida saraakiishu sheegtay Laascaanood waa la xoreynayaa lagana laaban maayo faraha laga laaban maayo gacantana laga laaban maayo haddii ilaahay idmo waana la isugu tagayaa dhammaan waxaan leeyahay qof kasta meeshuu joogo kuwii awal xagga hore ugu jirana waxaan leeyahay waa aragtaan sida dadkiina loo gelayo ka qayb qaata xoreynta warkana intaasaan u daynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh